السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذا غالي قد مانتي سودو وذات بني سلامية وولاشنا عاش عمر نعاو حربا فكر يرو مسكح ذي كجرا إن اللقا يبسدو فكر كاس أو نقندونا معنا عرقتية كردوان أو قفولي بوسي وترجمان كرو وتدمانتي نات بني سلامية سودو وذا channel كاتت كعصب تاي سبسكرايب دي حتى نتكو عصبين سودو وات بنكو سودو وينيا muhiim weeye inaan kala faa'iidaysano oo fikrada qaas dhaafsano caawa arrin aada u muhiima ayaan doonaya inaan ka hadlo arrintaas oo ku saabsan hooyooyinka Soomaaliyeed. Hooyooyinka Soomaaliyeed waa hooyooyin aada u qaaliya, waa hooyooyin aada u fiican, laakiin daryeel ma haystaan, wax isgarab taagna ma haystaan. Sababtuna waxay tahay social media maanta waxa ooyeysa waa hooyo, waxa la caruur baa layga qaatay waa hooyo, waxa la inankaygii baa la dilay waa hooyo. Adduunka social media laguma arag aabe taagan oo le ubadkaygii baa layga qaatay oo ooyaya. Su-aashuna waxay tahay qofka bini'aadanka inuu isweydiiyo sida iyadu u dhashay adigu uma dhalin miyaa kala maaragtay faamiliyadu kalitaanka ay kala tegayaan maaha in ilmihii iyo aabihii kala tageen. waxa weeye ninkii iyo gabadhii ayaa kala tagay, nonayn ilmihii ay kala tagayaan maaragtay aabihii. muhiimaddu waxay tahay in ilmihii la wada ilaashado, in ilmihii mustaqbalkiisa laga wada fakaro. Wadankan aan maanta joognaa maaha wadankeennii Soomaaliya, wadankeennii maaha ilmuhu heliya abti iyo ehel iyo adeer oo marka wax la yeelo laabta loo garaacanayay. Waxaan joognaa waxa weeye wadan shisheeye. inta maalin walba waxa ooyeysa hooyo oo la leeyahay caruurtii baa laga qaaday, wiil baa laga dilay, kana la dhaawac la gaarsiiyay. Anu maanta waxaan ka mid ahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee maanta caruurta haysta. muhiimaduna waxay tahay waxa weeye rag iyo dumarku haddii ay kala fogaadaan, muhiimaddu waxay tahay in la isla eego marxaladda ilmaha. Ilmuhuna kama maarmo labadiisa waalid iyo faamiligiisa midnaba. Tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa horta Soomaali inay isu tagto, community inaan samaysano, in maartay mustaqbalka ubadkeena aan ka fakarno, in maaragtay hooyooyinku waxa jirta inagu horta haddaan dumarnay khalad badan oo aan leenahay jirta. khaladka waxaa ka mid ah hooyooyinku intay is urursadaan ayay ama samaystaan reer habel baa ninka sharaxan yahay ama xisbi baynu taageeraynaa oo dhaqaale loo ururiyaa meelo aan xaflada ah oo aan munaasab ahayn inay tagto oo aan danteedu ku jirin ayay kasoo jaasaysaa. ubadkeedii iyo nolosheedina waa dayacan yihiin. ubadkii sida ubadka kale ee cadaanka u nool yihiin uma noola, oo inagu haddaynu nahay maaragtay Soomaali weyn ka dhaqan duwanahay oo dad maanta aan isku diinnahay ama isku dhaqannahay maaha. haddana yeelkay waxa loo baahan yahay kolba halka aad joogto inaad systemkeeda iyo nolosheeda iyo qaabka ilmahaaga aad u wadi lahayd inaad la qabsato. muhiimaddu waxay tahay ilmuhu markuu guriga ka baxo inaad ogaato halka uu ku maqan yahay, in waqtiga ilmaha aad maaragtay isku ogaataan adiga iyo ilmahaaga waxa uu sameynayo, ficilada uu sameynayo. maanta hooyo ayaa lixdeeda caruur ka maqan yihiin, raggii dhalay waxa laga yaabaa inay la joogaan qaar ka mid ah. maanta ay social media ka muuqan oo ilmahoodii u hadlaynin. aabe ayaa wiilkiisii inan yar tooganaya, arki maysid aabe leh ilmo inankaygii baa la dilay oo la toogtay. 24 saac waxa ooyeysa waa hooyo. tala ahaan anigu caawa waxaan soo jeedinayaa inay hooyooyinku isku tiirsanaadaan, inay wixii dantooda ah gartaan, in maartay labada dhinac haddii aanu ilmihii labadii dhinacba aanu waalidkiisa mid maaragtay wanaagsan aanu ka haysan, ilmihii dhaxdu ka baxaya. hooyo dardaarankan ku siinaya waxay tahay hooyo adaa ilmaha koriya, adaa ilmaha xanaaneeya, adaa dhakhtar u ah, adaa hooyo u ah, adaa awow u ah, adaa aabbo u ah, adaa family u ah. laakiin noloshaadu yay noqon oo keliya inaad ilmaha intaad cunto siiso, dhar xudho, iskool u dirto. maskaxda ayaa la koriyaa, maryo waxba ma sheegaan, cunto la siiyan waxba ma sheegto. haddaan ilmaha maskaxda laga korin oo aanad ilmaha soo dhaweysan oo aanad dhaqaalaysan waxba ma suurto gelayaan. talabaad haddaad noloshu waa step maalinba meel bay taagantahay. haddaad adigoo halkii shalayta taagan maantana aad taagan tahay uma malaynaya maaragtay inaad wax badan fahmi karto. hooyadana sambari waxa loo baahan yahay inay noqoto psychological waxa loo yaqaano, inay noqoto maaragtay dhakhtar ku takhaqusta qaabku ilmaheedu u dhaqdhaqaaqayo ama xarakaadka u bixinayo. laakiin maaragtay in maalin walba ilmo laynaga dilo,
in maaragtay aynu maanta qurba ku kala daadsanahay in maaragtay caruurteeni la daldalanayo in maaragtay aynan fakaraynin oo fakar iyo ficiltoona aynan la imanaynin in hooyadu maaragtay kuwii hore taxadirkoodii iyo koritaankoodii aanay ka fakaraynin ka fakarsa kuwa dambay dhasho marxalado badan baa jira haddaynu Soomaali nahay ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay dhibaatada inaga dulqaado in ilaahay inta awlaadoodii ka maqantay in ilaahay si nabad ah ugu soo celiyo laakiin Soomaaliyeed ka kaca fadhiga oo gacmaha isqabsada weliba ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay ubadkiina raadsada ta aad bari guursanaysid ilmaha ka dhalayso kanad ka tagtay waa kiisii waxba isma dhaamaan oo isku aabe oo isku ehel ilmaha ilaashada oo ka warhaya muhiimadu maaha hooyada haddaad furto inaad ilmahana furtay laakiin ilmahana waa dhiigaagii waa kuu muhiim inaad ilmahaaga ilaashato mustaqbal ahaan iyo wanaag ahaan intaasaan dadana inaga tagayaa ta labaadan ku darsanaya waxay tahay hooyadu markuu aabaha ka tago iyo isku dayin inay ilmihiisa ka fogeyso waayo labada qof iyagay wax ka dhaxeeyaan laakiin ilmaha iyo waalidkii waxba kama dhaxeeyaan si ilmaha contactgiisa iyo mindsetkiisa uu wanaagsanaado taasna way inaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh